mar kaliya ayuu gabadhii ku dhaygay oo isaga oo aan isogeyn waxa uu la soo booday dil wiilwaal dilba yaa beer iyo wadnara oo ku dhaca yaa sadagnaan ka heli kara markaas bay tiri hoy nin baa alla kaa dhigay walaalkay goorta uu degan yahay haddii aan kuu sheego soo ma dili karaysid wuxuu ku jawaabay oo heedhe miyaa lagu maray yaaba arkay wiilwaal oo dagan miyaad imalgaysaa waxay tiri aniga ayaa arkay oo aqaan goorta uu degan yahay adigu nin ma tahay kolkaas buu isaga oo aan ku qanacsanayn talada ay soo jeedinayso waxa uu weydiiyey oo waa goorta uu degan yahay waxay ku jawaabtay waa fiidkii xilliga ay odayadu golaha u soo hoyato ee si uu u liso uu weelka u qaato badanaa isaga oo hubkiisa dagaalka gacanta bidix ku wada haysta ayuu lo'dana midda midige ku lisaa waxay ku soo gabagabaysay arrintu sabar walba sidaas ma aha waxaa lo'dayada ku jira sactood xoog badan dadil si loo maaraana ay dhib tahay sacaas oo lagu magacaabo naasa adag wuxuu ku irmaan yahay oo lagu maaraa dibi uu dhalay oo isna itaal biiran sida hooyadiisna aan wax qaban karaa jirin haddaba marka uu sacaa lisaayo oo kaliya ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa waana marka kaliya ee uu degan yahay adiguna aad dili karaysid sidee haddaba taladaas iyada uu inankii kaga jawaabay maxaase xigi doona bal wax dhowr dhegaystayaal oo ka mid waayihii garaad wiilwaal iyo gunaanadka sheekadii dibiga naasa adag ee toddobaadkii hore wakhtiga aawadiis aan idinku qaargooyey dhegaystayaal si haddaba ay sheekadu isugu kin xiranto toddobaadkii hore inteedii aad maqasheen aan idiin soo koobo ka hor inteeda hadhay ee maanta inta aanan idinku jalbeebin wiilwaal waxay walaala ahaayeen gabar hoosta uga yarayd oo dadka oo idin uu ugu jeclaa mar walba isaga ayay la socon jirtay isaga ayay xoolaha la hayn jirtay halka uu isagu markaa ku sugan yahayna waa lagu arki jiray waagii dambe intay kortay waatay noqotay gashaanti u bisil guur iyo guri u gaara ha yeeshee intii muddo ayaa la waayay dhallinyaradii dagaanka ku ka mid oo u soo xodxodo doonta inay guumaysowdo ayay ku dhowaatay ma qurux la'ayn mana qiimi yarayna nin waliba walaalkeed buu uga baqay nin waliba inay garaafata intuu ka yaabay ayuu is yidhi wiilwaal oo aad ka fog tahay ha la xididin godkiisana ha ugu gelin ragsan ma ekayn weligiisna ma sinayne wiil mindhaageesinimo meel dhigtay waatuu isa soo kilkiray oo inta gabadhii u tegay xodxodo lowga ugu saaray erayo ay u beerraqdeen waa kii isu daba dhigay cid sidaas macaan ula hadasha ayuu ugu horreeyey waatay durbadiiba oggolaatay dabadeedna iyaga oo aan labalabayn waatay guurka ku heshiiyeen hase ahaatee markay inta riyadii ku qabowday ay runtii ku soo indhacadaysay waatay ogaadeen wiilwaal inaanu guurkooda si fudud ku oggolaan doonin maalintii dambe si alla si uu waxyeelo isaga oo garan la waatay gabadhii tala keentay tala ba'anoo siday ugu soo dhacday uu la abankaagay waatay ka dhaadhicisay walaalkeed inuu dilo haddii rabista guursigeedu uu dhabka yahay markaana waatuu xusuusiyey arrin degaanka oo idin laga wada ogaa oo ku saabsan feejignaantii xaddaafka ahayd ee wiilwaal iyo sidaan cidina ugu soo joogin hubkiisa dagaalka oo gacantiisa ka maqan waatuu gabadhii ku yidhi oo yaa gabaday wiilwaal u bareeri kara ma waxaa jirta goor la dili karo oo uu degan yahay markaasna waatay u sheegtay sir iyada mooyee aan walaalkeed cid kale ka ogayn waatay ku tidhi aan kuu sheego jeedka uu degan yahaye si wacan ii dhegayso waxaa lo'dayada ku jira sactood xoog badan dadil si loo maaraana ay dhib badan tahay sacaa oo lagu magacaabo naasa adag wuxuu ku irmaan yahay laguna maaraa dibi uu dhalayoo isna itaal miirana sida hooyadiina aan wax qaban karaay jirin haddaba marka uu sacaa lisaayo oo qura ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa waana marka keliya ee uu degan yahay adiguna haddii aad nin tahay aad dili karaysid inankiibaa afkala qaad ka soo haray
dhiiranaanta gabadha ayuu la ashqaraaray isaga oo cabsiyey buuxisay si iyada aad u raba ayuu su'aal ku celiyey oo wuxuu ku yidhi oo heedhe sidee baan ku garanayaa marka uu naasa adag lisaayo waxay ugu jawaabtay fiidkii markay noqoto oo lo'dayadu ay reerka u soo hoyato ayaad soo fadhiisan meel u dhaxaysa golaha lo'da iyo aqallada adiga oo hubkaagu kugu dhan yahay dabadeedna marka uu walaalkay lisida saca u tafaxayto ayaan aniguna waxaan kuugu baaqi doonaa cod dheer oo aan kugu ogeysiinayo goortu inay tahay goortii habboonayd ee wiilwaal oo dagan aad makali lahayd kadibna aynu sidaa qoys ku noqon lahayn qorshaha halista ah inuu yeelo ayay si isdaba jooga ugu guubaabisay habeen iyo dhalaarba goortii ay is arkaanba way ugu celisay waxay u qurxisay dilka walaalkeed ilaa ay kolkii dambe yeelsiisay habeenkii lagu ballamay ayaa soo galayoo dhulka eebe mugdigiisii ku daboolay inankii oo u eg wax nafta ka samirsan si guubaabadii gabadhu ay maantirtay ayaa golihii wiilwaal u soo xadxaytay wuxuu ku xiran yahay wixii hub uu heli karaayey waran gaashaan hooto seef iyo toorey 3 gees ah geed xagar ah oo aan ka fogeyn edagta weynaha ayuu ku soo gabaday wuxuu doonayaa waxa golaha ka dhici doona oo dhan inuu si wacan u maqlo in aan sharqan yarina dhaafin ayuu rabaa si aanu u seegin baaqa uu u dhogtaagayo ee xagga gabadha uu ka sugayo wuuse walwalayaa tallaabada ba'an ee uu koldhow ku dhaqaaqi doono ayuu dhab uga walaacsan yahay wuxuu og yahay inay tahay tallaabo isaga ka hor aan cidina ku riyoon kuna dhiiran waxaa ku soo dhacday maahmaah uu odayada ka maqli jiray oo ahayd awr wado iyo nimay naagi wadaa midna kaama weecdo maantase murtidaas dhug iyo dhagatoona uma laha waxaa xusuustiisa ku soo dhacday tii kale ee ahayd hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh iyaduna caawa hakin mayso suu meel uu ka noqdo ma joogee dhabanka ayuu dhulka ku hayaa durba waxa uu dareemayaa dhaqdhaqaaq hor leh oo xagga reerka ka soo gaaraya xidigtii waxala xirta ayaa sii wislahoo cirka ka sii hoobanaysa wisinkii ishkinka la maali lahaa ayaa la joogaa waxaa u muuqda dab oogan oo lo'da iyo carruurta qaarkeed ay kulaalayaan ololka dabka ah ayaa kolkol wuxuu tusayaa dumar gacnaha ku wata agabkii lo'da lagu maali lahaa sida dabaro haruuba culan kuwa la deebiyey iyo caanaha habeenkaa la liso dhiilihii lagu dhigi lahaa weylihii iyo sacihii dhalay ee ay ku irmaanaayeen ayaa bilaabay inay isu coyaan markii la gaaray fiid walba xilligii la isu soo dayn jiray lo'da inteedii badnayd hadda waa la maalay wuxuu inanku u tooghayaa naftiisa goortii uu biimayn lahaa oo soo dhowaatay baaqii gabadha oo ilmilicsi kasta dhegihiisa ku soo dhici kara ayuu sugayaa wuxuu goostay xagarkii uu ku gabanayay inuu ka yara baxo oo xagga reerka inta uga durko uu xerada lo'da fooda ku qabto sidaas markii uu yeelayna waxaa u suura gashay inuu maqlo hadal kasta oo dhex maraya wiilwaal oo kolba sac lisaayo iyo walaashii oo weylaha hadba mid u soo daynaysa cabbaar wuxuu halkiisaa ku nabnaadaba waxaa la soo gaaray markii la lisi lahaa sacii dhibta badnaa ee lo'da loogu dambaysiin jiray sacii naasa adag ku magacownaa inankii ayaa wuxuu maqlay wiilwaal oo gabadhii ku leh heblaay dibiga naasa adag soo daah markaas bay si ay ugu baaqdo waxay cod dheer ku tiri dibiga naasa adag baa hadalkaa dambe ee walaashii ka soo yeeray ayaa wiilwaal dareen geliyey maxaa yeelay ma ahayn hadal uu uga bartay isla markiibana dabarkii iyo agabkii kale ee uu saca ku lisi lahaa ayuu gees isaga tuuray halhaleel ayuu dhulka uga haabhaabtay qalabkiisii dagaalka wuxuuna ku hubsaday labadiisa gacmood dabadeedna isaga oo aan garanayn halka looga iman doono ayaa waxaa afkiisa ka soo baxday su'aal waayadii dambe maahmaah noqotay oo ahayd naa maxaa dibiga naasa adag iyo weedha kulmiyey hortiisa iyo hadeerihiisa ayuu indhaha aad ula raacay mise waxaa ku soo garan inankii oo bidixda iyo bidigtaba labadiisii waran ku sita seefi ay u jeeda qaadan tahay abley af badanina ay u galaysan tahay haddiiba wiilwaal wuu fakeray wuxuu hubsaday ninka soo maqiiqanay inuu isaga maagan yahay markaas buu degdeg u baneeyey halkii uu taagnaa oo dhanka bidixa u booday
inankii oo xawligii oradkiisa yarayn waayey ayaa gadaal u dhaafay isagiina intuu sidii libaax dhaawacan uga daba booday ayuu hoota dhagaleeya ku halgaaday oo garabka bidix kaga joojiyey inankii oo nabarkii la alaladaya hootadiina ay ku taagan tahay ayaa dib u soo jeestay wuxuu maagay inuu is-axmo oo ninka dilay uu waran tuuriyo ah caloosha kala helo ha yeeshee waxay noqotay toog baaqatay wuxuu iska waayey xooggii uu waranka ku seeraarin lahaa ee uu wiilwaal ku gaadhsiin lahaa dabadeedna kii oo xaraaruga oo naf xuni ay ku sii cirriq leedahay ayuu inta dul tegey ruux togay seeftiisii oo hidaacaysa ayuu kurka kaga jaray halkaas buu ku ahaaday su-aasha kolkan meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay wiilkii aragnaye gabadhii iyadu maxay tarow ku dambaysay walaalkeed wiilwaalse maxay habeenkaa ka mudatay oo yaa yaqaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna ku soo dhowaada sidaan mar horeba idiin ballan qaadnay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja waa kan waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii 8aad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal tan iyo markuu garaadsaday waxaa wiilwaal ka go'nayd inay caddaato rag oo idil inuu isagu ugu awood roon yahay welibana ugu garasho badan yahay sidaas awgeed wuxuu filan jiray cirka iyo dhulka meel dhexdooda ah in laga wada eego xilliyadii hore ee ina garaad faarax loo yiqiin iyo markii inta la caleema saaray uu garaad xirsi noqday kadib muddadii uu noolaa oo dhan sheekooyinkii dhulka soomaalida la isaga warin jiray waxay u badnaayeen isaga iyo wacdarihiisa isaga iyo xujooyinkiisa isaga iyo feejignaantiisa wuxuu ahaa nin si aada u rumaysan hubka wax la isaga rabo oo qurihi inuu yahay waxa awoodda lagu xagsan karo ee dadweynaha uu u taliyo uu ruuxa madaxda ahi tiisa ku yeelsiin karo wuxuu ahaa badbaadada noloshiisa nin aan cidna ku hadlayn oo dadka wixii gacal u ah iyo wixii aanu ahaynba isku si isaga ilaaliya qalabkiisa dagaalka ayuu dhab u aaminsanaa naftiisa iyo boqortooyadiisa labadabana isaga ayuu gaashaan uga dhigtay arrintaana waxaa loo heli karaa tusaalayaal fara badan madaxdaygase waxaa ugu darayd wiilwaal iyo wadaaddo dhacdadii la baxday taasoo aynu ka garan karayno meeshii fogayd ee qalabka dagaalku uu kaga yeelay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayuu aqaladiisa wuxuu ku marti sooray wadaaddo dhowr iyo 10 ah oo ka tirsanaa dadkii uu u talin jiray iyo qaar degmada dool ku yimid labadaba aqoonta diinta oo ay ka sinaayeen ka sokow waxaa ku jiray qaar xaaje hebel loogu yeero oo taa awgeedna si weyn ay bulshadu ugu maamuusi jirtay si wanaagsan iyo sidii nin garaada lagu yiqiin ayuu u sooray laba intuu u fariisiyey ayuu ka dhargiyey hilbihii wanka oo qaarba si gooni ah loogu wanaajiyey araggiisa oo qura bariis ay gaajadu ku ba'do oo geed adagii laga buuxiyeyna uu hordhigay dhay suusac iyo karuur caanihii geelana wuu ka durduuray oo martida cad iyo caano oo keliya laguma sooree midhax iyo jalbeebna waa loogu iidaamaaye intuu weji furan la dhex fadhiistay ayuu u deexday ilaa ay cunnadii ku degtay oo intay hurda qabatay ay wada lulmoodeen ha yeeshee inay duceeyaan oo keliyihii markay u hadhay markay u faarumaysteen inay reerka ka ambabaxaan ku walibana uu qoyskiisii u carraabo ayay wiilwaal wax ku soo kordheen waxbaa ku soo dhacay hadal kale oo dhan intuu sikadiisa u joojiyey ayuu wadaadadii dabin ku dhaygaga wuxuu arkay samaley warmale inay wada yihiinoo aan lagu arag mid keliya oo haysta waran ama seef ama ableytoona markaas buu intuu ka yaabay kula soo booday su'aal aanay filanayn weligoodna aan cid kala haybin wuxuu ku yidhi oo wadaadow wax la isweydiiyaa ma xumee horta qalabkiinnii dagaalku mee haddiise la idinsoo maago yaa dadka idinka celinaya midkood baa kolkaa af carbeed ugu jawaabay oo ku yidhi naxnu mutawakkiluun cala allah oo uu ula jeeday annagu eebbe ayaannu tala saaranaayoo cidna kama baqno dabadeedna iyagii oo aan weli halkoodii ka kicin ayuu wiilwaal aqalkii dibadda uga baxay in yar hadduu ka maqnaa oo uu ku soo noqdayna waxay ka maqleen wax ay la wareereen
wuxuu ku yidhi awyaalow intii aan idinka maqnaa waxaan sabada la taagnaa xidiga sheeg waxyaqaan ah aniguna aan ku kalsoonahay wuxuu ii sheegay in naftaydu ay halis ku jirto oo dhibaato aan ka soo waaqsi lahayn ay igu dhacayso haddii aanan dilin wadaadadiinna halkan fadhiya midkood kolka si aanan dhammaantiin idiin warjeefin waxaa ila habboon inaad iska soo saartaan wadaadkii aan gowrici lahaa arrintuna ogaada oo waa degdeg haddiiba wadaad ka mid ah ayay soo muquuniyeen intay farta ugu fiiqeen kii oo argagaxsan buu sidii ari iideed intuu dhegta u soo qabsaday dibadda ula soo baxay oo wax ma yeeline aqaladiisa midkood dhex fadhiisiyey isla markiibana tooraydiisii intuu galka kala soo baxay ayuu sabeen meelaha taagnayd ku gowracay isaga oo tooraydii gacanta ku haysta dhiigguna uu ka tifiq leeyahay ayuu wadaadadii ula galay markaas buu ku yidhi awyaalow xidiga sheeggii wuxuu haddana igu yidhi waa inaad wadaad labaadna gowracdaa haddii kale badbaadi maysid kolka waxaan idinka rabaa hadalkii oo aan weli afkiisa ka soo dhammaan ayay sidii loo gadooday dhagax yidhaahdeen naftaa macaane ilidii uu ku hortaagnaa ayay isku buurteen iyaga oo kutubtiina gooshii kaga tegey kabihiisii mid iladayna aan lagu arag argagax baa dhammeeyey ku waliba hortiisa ayuu u cararay isaga oo aan garanayn halkay caguhu ku simi doonaan waxay sii cararaanba markuu istusay inay xuurta la dhaqaaqi la'yihiin oo qorraxdiina ay baalka sii dhiganayso ayuu wiilwaal wuxuu ka daba diray dhallinyaro fardooley ah oo reerka ku soo celisa kuwaas ayaa midba meel ka soo helay iyaga oo ka dhaadhiciyey garaadku inaanu wadaadkii hore dilin iyagana dili doonine uu arrinta xujo uga dan lahaa xujo uu ku muujinayay in qalabka dagaalku uu ragga lama horaan u yahay hadduu wadaad yahay iyo hadduu waran la yahay labadaba iyaga oo cagamurux la ildaran asii dhagadhan ayaa aqalkii garaadka lasoo hordhoobay dabadeed markay daal tirteen oo ay dadadii ka ba'dayna wuxuu ka wada simay deeq fara badanoo wuxuu ku markaday ay ku iloobeen